حوجا يا ربا إن عن كهالله كالفدي هذا أفرتي بلودان صور دافني وحي عن كبرني هي هذا ماشى نجوجنه إيوه ماشى عن سنين وحن هكسرنا سنة كان إنه إلهي نوغديو سنة ونكسر أو خير قبح إنه إلهي نوغديو سنة عن كشقين دبوجسين تا ومدة صوماليين إنه إلهي نوغديو سنة دبوليس وعن ذلك يعني سنة مركان ليه هاي دبوجسين وواحد يقومهم سنة ومدة شعب كنا نجسوا جايان وحواه ريد دبوجسين دحدة النهارتين يكمل عضته وحن ربعنا المدين شيء وحقيقة أقل كسره يقولها شعبك وحلو بهاي دبوجسين تودي إنهم بلاونه دوله هذا وحن هيا وقد أقل كسر صدرين أو إيدوجين وذا شقين قولها شعبك سيدي محن كورا هذا دولة قبل الجدي شقد النوجل جورجيين أنا مركا هذا الدحلة نوعية ولي واحد يقول إن جوده هنا واحد الله وحي مبدئة أو دحلة كجرة سيان وجود منه شعب كنا صوماليين واحد كسوي كالقبان أو نباتا أو هرود عادي إن كشقينه سوسو دوان لهاين سي جماعة سوق قبصان لهاين دبوجسين وارتا إن كده حدينه هدول لا يرانو ماشي كسب بلاوة المرك أفضل برودكوه waxay ahayd markii kalfadhiga furmaayay oo aan ka hadlaynay inaan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qodbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyay yaa aqalka sare waxay yiraahdeen annaga golaha shacabka meel la fariisan meeyno waxaan u yeeray gudoomiyaha maxamed mursal iyo maxaan ku raahdaa Cabdi Xaashi waa wada fariisiyay xaaladoodu waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fariistaan aysan wada fariisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas'uuliyiin inaan fiirino dareenka shacabkeena haddaan wada jirno shacabkeena waa wada jirayaan haddii aan kala maqannahayna shacabkeena waa kala maqanayaan markaas ka soo bilaabatay xiriirka labada aqal marka in aan dibujisiin u sameeyno haduu ilaahay yiraahdo sanadkan waxay ku jirtaa barnaamijyadeena number 1 marka la fiiriyo kan ugu horeeya haduu ay yiraahdo waa dad waxaan ku tuhumeynay xoogaa markaas naftigeena waa markii dawlad goboleedyada yiraahdeen waxaan ka joojinay wada shaqeynta dawladda dhexe oo xoogaa aan lahayn dawladda goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhaxeeya iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergeygii qaramada midoobay oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladaas kala taagnaanshaha oo aan u sharaxnay aan ku niri Soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intii rabta nagu qaadato ma ogolin inay cidna soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeelay waxaan ogahay intii rabta ha qaadato haddaan nahay Soomaali halka anagu nagu jira anaga la heshiinayna cid soo kay khasbaysa malaha cid damaanad noo kala seexaysan malaha haday damaanad macno leedahay horana loogu kala seexay waliba dibkii wali qaar kamid waa taagan marka waxay ku qorxoon tahay anaga dhexdeena inaan damaanad isku noqono oo dhexdeena aan ka heshiino cid walba aan u sheegno anaga iskale hawlaheena anaga heshiinayna anaga waala taasa keentay ninkaas odayga markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka Soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri Muqdisho Soomaaliya maaha Soomaaliyana Muqdisho maaha arintaas arin aan ka caroonay oo aan wanaagsaneyn oo si xoojinaysa runtii difference farqi u dhaxeeya dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada haddaba intaas waxa ka dambeeya hadalkayga ku soo gabagabeynay taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda ay naga sugayso oo annaga in laga sugaayo inaan dadkeena isu keenno koow annaga iska bilaawno dhexdeena wax alla wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeena iska daaweyno